Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ah caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa maalintii labaad ka soconaya dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada maamulka iyo maleeshiya beeleed markaasi deegaanka. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii la sheegay in ciidanka Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen guriga wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya Xasan Eelay oo ay isku markaasi dhacsan yihiin maamulka. Xildhibaanka oo ka hadlay dagaalka ayaa cambaareeyay waxa uuna soo bandhigay kaalin uu sheegay in uu ku leeyahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in waxa ka socda magaalada ay qayb ka yihiin tacadiyada oo maamulka ka wada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Tacadiyada maanta ka dhacay Baydhabo ma aha kuwo cusub. Maamulkaasi hore ayuu ugu caanbaxay dilal bareer ah, xarig sharci darro ah, jirdil, caburin siyaasadeed iyo is-hortaag joogto ah oo lagu sameeyo safarro iyo duulimaadyo ay lahaayeen siyaasiyiin ka aragti duwan, ayuu markaasi yidhi xildhibaan Xasan Eelay. Waxaan si adag u cambaareynaa weerarada xasuuqa iyo tacdiyada arxan darrada ah ee maamulka Laftagareen ka wada xaafadaha ay ku nool yihiin dadka rayidka ee magaalada Baydhabo, iyo sidoo kale go'aanka sida ula kaca hawada markaasi looga saaray isgaarsiinta magaalada Baydhabo oo dhan waa fal dambiyeed lagu qarinayo xaqiiqada si aan markaasi loo ogaan waxa dhab ahaan ka socda magaalada. Xadgudubyadan naxariis darrada ah waa kuwo si cad xiriir ula leh dano siyaasadeed oo markaasi lagu doonayo in si sharci darro talada markaasi loogu sii nagaado. Laftagareen oo xilka ku yimid hannaan markaasi aad loogu muransanaa islamarkaana dhiig ku daatay ayaa muddo 3 sano si sharci darro ugu fadhiya xafiiska isagoon haysan wax sharciyada. Tacadiyada maanta ka dhacay Baydhabo ma aha kuwo cusub. Maamulkaasi hore ayuu ugu caanbaxay dilal bareer ah, xarig sharci darro ah, jirdil, caburin siyaasadeed iyo is-hortaag joogto ah oo lagu sameeyo safarro iyo markaasi duulimaadyo ay lahaayeen siyaasiyiin maamulka ka aragti duwan. Ficiladan waa markaasi xadgudub ka dhana dastuurka, xuquuqda aadanaha iyo dowladnimada. Adeegsiga awood ciidan oo lagu beegsanayo dad rayid ah iyo mucaarad siyaasadeed oo ka aragti duwan waa dambi culus, mid siyaasadeed iyo mid bini'aadanimo labadaba. Falalkan arxan darrada ah waa kuwa haba yaraatee aan la aqbali karin, waana in si degdeg ah loo joojiyaa. Laftagareen iyo dhammaan saraakiisha ciidan ee maamulkiisa ay ku lugta leh xadgudubyadan waa in markaasi lala xisaabtamaa, ayaa markaasi uu ku yidhi warka ka soo baxay xildhibaan Xasan Eelay. Xaaladda magaalada ayaa markaasi haatan kacsan xilli guud ahaan dadkii magaalada degnaa ay markaasi isaga barakacayaan, waxaana la soo warinayaa khasaare xooggan oo dadka rayidka soo gaaray oo isugu jira dhimasho iyo dhaawaca. Dagaalkan oo maalintii labaad galay ayaa waxaa dhinacyada ay markaasi isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, xilli magaalada ay haatan markaasi isgaarsiinta ay ka go'an tahay oo maamulka Koonfur Galbeed uu hawada ka saaray. Xaaladda magaalada oo markaasi mid colaadeed isu bedeshay ayaa kaliya muuqaalada haatan markaasi baraha bulshada lagu wadaagay ee laga helay gudaha magaalada waxa ay muujinayaan dad barakacaya, dad dhaawacyo sida iyo meydad markaasi dadka ay jiidayaan. Waxaana markaasi soconaya dagaalka aadka u xooggan oo haatan u muuqdo inuu ku sii fidayo xaafadaha qaar. Wixii warar ay ku soo kordho dagaalka ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal.